odayaasha dhaqanka santarka Lababaar ee degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay oo uu horkacayo suldaanka beesha Habargidir Muuse Xaashi Canshuur ayaa waxa ay isugu yimaadeen madal ay markaasi kaga hadlayeen xaaladda deegaanka ama santarka Lababaar ee degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay oo dhawaanaanba ay colaad xoogani ka taagnay taasi u dhaxeeya beelaha walaalaha ee wadadaga bariga degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay odayaasha dhaqanka iyo suldaanka beesha Habargidir oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay baaq u direen maamulka deegaanka Soomaalida ugu horeeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Mustafa Cagjar waxayna eedeyn u soo jeediyeen madaxweynaha hore ee dawladda deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Lugbuur iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulka degmada Shilaabo ay ku eedeeyeen in ay qayb ka yihiin horinta colaadda ka taagan inta u dhaxaysa Shilaabo iyo Lababaar odayaasha Habargidir oo Lababaar baan ka mid ahay magacayga Cismaan Salaad baa la yiraahdaa soddon iyo dhowr sano kililku dhisan yahay kililka shanaad annagu xaquuqdii aan ku leenahay kililka oo aan ku lahayn ma aanan ka helin wax sabanfal la yidhaahdo innaba ha la ekaatee kuma qabno dawlad deegaanka kililka shanaad ummadda xaquuqda ay leedahay mana la siiyo xaquuqda waa naga go'anta motor baanaan lahayn iskuul baanaan lahayn isbitaal baanaan lahayn naagaha iyagu markay umulayaan waa ku haqdaan meesha macawino la bixiyaanaan lahayn hal gabar ah oo xaaqda xaafiis oo Habargidir ma jirto hal qof oo mushaar qaatana kuma arko xaquuqdayada saasay soddon iyo dhowr sano ugu maqan tahay kililka ma soo dhaafto markii la qaybsaday degmada Shilaabo ma soo dhaafaysa xaquuqdeedu xaq darana la ku hayaa canshuurtaana laga qaadaa ciidankaana laga qaadaa meel kasta oo kililka annaga ciidamadayadu waa ku dhintaan waana joogaan ciidamada Kenya xoog ay ka mid yihiin kililka shanaad ayadoo ay saas tahay aabood iyo hooyadu halkaas looga tagaa weerar baa la soo dabagalay ilaahay baa bixiyay waxba kama qaadin intaas halkaasaan oo gudbay tan kale ninka madaxweynaha soo maray Lugbuur hadda 3 bari ka hor wuxuu yaar arintu kaga hadlay oo kaga hadlayay aan rabaa inaan wax yar ka dabagala marka media oo ka hadlay ayaan rabaa arin yar inaan ka dabagalo marka waxaan leeyahay bahagiri waxay qabtay ninkii la qabo soo kaan mid anaga haduu siyaasi yahay haduu xubin dawliye yahay cid doonaba ha ahaado wixii bahagari qabto ninkii la qabaa anaga waa naga mid wax intana ama gaaro ugu dheeriyahay male hatta doo tuuta gashan yahay bahagari waxaan col laba reero shacabana waan cilownay nabadiina way nagu diideen nuuc walboon ugu goobna way diideen ma qaadanayna yiraahdo nabadda ilaa aad ka guurtaan dalka aan ka guurayna muxuu yahay markaa waa dalka ilaahayna makaniyo anagu aanu deganeen maxaa sababeeyay in sidaa yiraahdaan bariga aan isku dhacnay ciidamada kililka inta Cabdi Maxamed Cumar dalka haystay ayay qaybihii anagu aanu deganeen ciidanka inta soo hoos mareen dagaalka ciidanku nala diriray ee dhulka mid degan dhulkii kaabaha guriga galiyay waxaa seer noo ahaa lafta weyn waxay degeen beerahanagii garcilaan waxay degeen dhulkii aanu degi jirnay ee ceeshanadii Galambiya waxay degeen Warxanan dhulka anagu Habargidir deegaanku lahayn way waxay ku heleen la dagaalanka ciidanka la dirirnay oo isku dhacnay ciidanka ay inta ku degeen oo ninku haduu mar heer qaato ka kale inuu ka qaatana saas buu ku dooni hunguri baa galay marka waxaan u sheegan ciidanku waanu heshiin gacmo furan baanu ku heshiin dhulkii horena kaga qaadaan u soconaa anagu dhul isku haysta waa jira laakiin dhulka horena kaga ciidanka awgiis ay ku heleen dhul isku haysta waa jira waa degmada oo naga dhaxaysa ninka hadlaya waxa weeye suldaan Muuse Xaashi oo kililka Itoobiya Habargidir wakiil uga ah waxaan rabaa maanta waxa aan ka hadlahayaa hadda inta ka horeysa waxaan u ku waday nabadgelyada deegaanka Itoobiya ninkii u taagnaabana
dadkiisa iyo deegaankiisana nabadda aad iyo aad ugu dadaali jiray dawladduna way ogtahay waxaa igu kallifay galabta hadda ka horran kama aana hadlin wax dhiba oo aan ka hadlay iyo wax xumaan oo ka hadlay aragti kale oo aan ka hadla male wax kasta oo wax qabay waxaan uga hadlaan rabaa galabta inaan sheego haddii alla idmo marka hore 3 kelmadood oo meesha ka dhacday markii ay maqlay dadkii mas'uulka aan ka ahaa oo habargidir markay maqashay sidii ay ahayd si ka badan oo ka sii adag oo ka bedelan bay noqotay in wax la isku sheegana way bannaanta annaga waxaan nahay dadka canshuurta laga qaado oo qorraxay ka mid ah oo degmada Shilaabood ka mid ah oo kilirka ka mid ahna canshuurtii ugu dambeeyay haddeera laga qaaday 21 qabale oo ku taala santarka laba baar ku taala ayaa laga qaaday canshuurtaas canshuurtii la qaaday ee kilirka degmada u hoobatay oo dawladdu qaaday saasaa looga qaado raalli ku ahaayeen dawladduna waa og tahay ayaguna inay dawladdeeda leeyihiin oo degmada ay leeyihiin oo deegaanka leeyihiin oo gobolka leeyihiin oo kilirka leeyihiin bay u bixinayeen waxaa ka hadlay oo uga hadlahayaa maanta dadkii saas ahaa waxaa ku dhacday abaar biyo la'aan baa ku dhacday oon baa ku dhacay wax kastoo dhan oo ay ahayd waxaan ka hadlay inaan dadkaas la nooleeyo oo gobolka iyo degmada iyo kilirkaba laga nooleeyo maadaama ay deegaankoodiina ka mid yihiin degmadiina ka mid yihiin waxaa hadalka koowaad keenay dadkii sidaas ahaa in la yidhi booyadda biyaha lama geyn karo meeshii canshuurta laga soo qaaday lama geyn karo markii la yidhi habargidu waa isbeddeshay oo lama geyn karo deegaankay deganaayeen waa qodobka kale intaas oo dawladdu ay dhaqneed